magurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn. kulan wanaagsan dhageystayaal, waxaan ahay Axmed Maxamed. ku soo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga. toddobaadkii barnaamijka tusmada sharciga wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta xuquuqda sinaanta sida uu dhigayo dastuurka Soomaaliya. mawduucan wuxuu diiradda saarayaa waa maxay sinaan. Soomaaliya qayb ma ka tahay xeerarka caalamiga ah ee ku baaqaya sinaanta. martida barnaamijkuna waa Cabdulqaadir Sheekh Axmed Nuur. ku soo bir wadahadalka dhageyste kuna soo dir aragti iyo su'aal wixii kaaga baxa lambarada idaacadda ee kala ah eber 69624 ama lambarka kale ee ah eber 69624 tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo horumarinba u ah bahda jecel dhiganaysana cilmiga sharciga iyo qaanuunka. waxaa nagala qayb galaya Asma Daahir Axmed, Sucaade Yuusuf Maxamed, Maryan Cabdixakiin Saalax. mar kale tusmada sharciga. su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda? dhib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray? ma jeclaan lahayd in lagaa caawiyo ama lagala taliyo? haddii ay jawaabtu tahay haa, fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah, kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho. hagaag dhageystayaal, u sinaan la'aanta fursadaha nolosha ee bulshooyinka dhexdooda waa mushkilo si guud iyo si gaar ahba dalalka dunida uga jirta. waa mawduuc weyn oo laga sameeyo doodo guntoodu tahay in laga fogaado sinaan la'aanta ama xal loo helo. barnaamijkeena waxaan ku rogrogaynaa ilaalinta xuquuqda sinaanta sida uu dhigayo dastuurka Soomaaliya. waxaa barnaamijka marti inoogu ah Cabdiqaadir Sheekh Axmed Nuur oo nala falanqayn doona. markan isaga ayaan soo dhaweynayaa istuudiyaha nagula sugan. soo dhawow marka hore, waan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. marka xigta intaanan su'aalaheena u sii dhaadhicin, bal ciwaankan aan ka hadlayno faham guud naga sii. Axmed, waa sidaa sheegtay, sinaanta waa mawduuc aad iyo aad ummadaha ay uga hadlaan, ay ka mid tahay ummadda Soomaaliya dabcan. sinaantuna waa mabaadi'da nolosha ka mid ah, in ay dadku waajibaadkana u siman yihiin, xuquuqdana ay u siman yihiin. waxaa la dhihi karaa qaanuunka dabiiciga ah ka aan qornayn ee qaanuunka dabiiciga ayaa sheegaya, caqliga bini'aadamka logiga ayaa sheegaya. inta aanaa gelin mawduuca gudaha, waxaa aan istusay in aan fahanno marka hore mabda'an haddeer la isku waafaqsan yahay meesha uu kasoo bilowday ilaa iyo hadda meesha uu marayo, inaan taariikh ahaan usoo dulmaro wax yar. sinaantan horta waa xaq uu bini'aadanku leeyahay, maadaama uu yahay bini'aadan uunan ahayn xayawaan. bini'aadankana waa taqaanaayo waxa uu ku kala duwan yahay waxyaabo badan. dabeecadiisu ku kala duwan yahay, awoodihiisu ku kala duwan yahay, dabeecadiisu ku kala duwan yahay. wuxuu kala duwanaan karaa waxa uu aaminsan yahay, diin ahaan uu aaminsan yahay, luqadiisu kala duwanaan karaa, mabda' siyaasadeed buu lahaan karaa oo ka duwan ka kale. qofkan ithnigiisa meeshu ka soo deedo ilaa aad u soo degto oo nin iyo naag ay ku kala duwanaadaan labadii qofood. marka kala duwanaanshahaas iyaduuba ilaahay sidaas dadkii u kala duway, haddana ma la simi karaa? haa, waa la simi karaa. waxaa lasoo bilaabay waqti hore in dadkan kala duwan haddana wax laga simo. lama dhihi karo bini'aadanku 100% wuu sinaan karaa, lama dhihi karo. oo ilaahay wuxuu leeyahay, walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk. wuxuu kusoo gebagabay ilaahay, walidaalika khalaqahum. ilaahay inuu dadkan kala duwo ay kala duwanaadaan asagaa u sameeyey, waa sunno ilaahay uu leeyahay. laakiin annaga markaan dadkan la tacaamulayna bini'aadanka ma simi karnaa. taariikh ahaan bari iyo galbeedba dunida dad ku nool, dadku way kala duwanaayeen. bini'aadanku markuu soo dhashay oo dawladaha uu bilaabay,
haddaad tagto bari haddaad tagto wadamada shiinaha iyo jabaanka iyo xadaarada Cambodia iyo India iyo wadamadaas diimihii ka jiri jiray ama waxay aaminsanaayeen dadkaasi shacabkoodu way kala ahaayeen farqi baa u dhaxeeyay ma sinnayn dad waxay ahaan dabaqad gooniya oo dabaqada ku jirta goobaha cibaadada dabaqad siyaasiyiin oo boqorra dabaqado maxal dhigi jiray beeraley ah oo haysta dhaqaalaha dabaqadahaas way kala duwanayeen ninba nin yani iskuma dhexdarsan jirin awoodahooda saasayna kala ahaayeen nin kastana saasuu sharcigu u fiirnay sharciga frame gooni ku fiirnay hadda u timaado intuusa islaamka soo bixin nimankii Greek dhihi jiray iyo Roomaankii xadaaradii galbeed ka jiri jiray ayaguna waxay u arkayeen Greek waxay u arkayeen dadku inay kala duwan yihiin inayna marnaba sinaan karin ko dadkooda u kala saarnaa dad kaniisada ugu dhex jira oo ilaah matalaya dad ilaah ku xigeen oo boqorada dad askar ah dad iska leh dhaqaalaha oo beeraha iyo dadka ku dhex jiraba iska leh saas ayaguna u qaybsamaayeen mana aaminsanay fikraddu inay dadku siman yihiin xuquuqda iyo waajibaadka inay ka siman yihiin ma arkeen ee waxay u arkayeen dadna inay yihiin dad wax leh inta kalena dad la leeyahay Greegu diin ahaan markii laga fiiriyo kaniisada waxaa ka soo dhex muuqatay inay dadku sinaan iyo xuquuq leeyihiin laakiin dhinaca boqortooyada waxaa ka muuqatay falsafada dadka waxay aaminsanaayeen in aysan dadkan marnaba sinayn sidoo kale waxay u arkayeen dadka reer Greek iyo dadka shacbiyada kale ee banaanka ka degan inayna marnaba sinayn oo aysan ahayn dad isku dhigma oo dad farqi weyn u dhaxeeyo oo in la kala tacaamulo sharciyo gooniya kala qaataan ay aaminsanaayeen marka waxay ku tageen fikradaas ah inay dadku marnaba aysan sinayn waxa yimid gadaashooda nimankii dhaxlay oo ahaa nimankii Roomaanka ahaa Roomaanka waxay bilaabeen fikradan ah dadku inay siman yihiin laakiin ayna marnaba sinayn dadka muwaadiniinta iyo dadka ajaanibta marka waxay sameysteen sharci maadaama ay dad ganacsato beerley ay yihiin Talyaaniga hadda ogtiin waxay ku dhisan tahay xadaaradooda beer xadaaradaas waxay aaminsaneen dadka ajaanibta inay ka qiimo yar yihiin dadka Roomaanka ay dadka Roomaanka supremacy leeyihiin way ka sareeyaan oo dhinaca Ilaahay ka xigaan dhinaca xadaarada iyo bini'aadanimada ka xigaan saas ay warkayeen hadda waxay sameysteen dawlad ka madax banaan nidaam sharciyeed oo ka madax banaan dadka muwaadiniinta lagu la dhaqmayo nin protocol la u dhibteen waxay dhaheen adaa waxa la tacaamulaysaa dhammaan transactionska dadka ajaanibta iyo dadka muwaadiniinta reer Roomaan marka waxaad arkaysaa fikradii wali inay haystaan Greek oo ahayd inaysan dadku marnaba sinayn intaas daan ka soo tagno oo u inimaano waqtigii risaalada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay soo degtay ee Makka ku soo degtay waxaa bilowmay fikradda ah in dadku ay absolutely wada siman yihiin wax kastana ay ka siman yihiin oo xuquuqda iyo waajibaadka la kala yani loo siman yahay oo lagu kala duwanayn oo lagu kala duwanayn ethniga aan lagu kala duwanayn beliefka aan lagu kala duwanayn qofka wuxuu aaminsan yahay aan lagu kala duwanayn marka mujtamacan bariga degan badana wuxuu aaminsanaa in ay yihiin dadku loo kala saaro adoomo iyo dadkii lahaa oo carabtooda xasuustaan oo waxa aad ugu badnaa inay la is adoonsado kaligoodna ma ahayn nimankii maxaa la jiray Iiraaniyiinta la wadaagay waxa la wadaagay Roomaanka la wadaagay in dad la lahaado qof la lahaado waad noogtiin taariikhda islaamka ka soo maray in la baabi'iyo adoonnimada sidoo kale waad ogtiin mujtamaci bariga ku noolaa ama carabta waqtigaas waxa ay
farq weyn u dhaxaysiin jireen dumarka iyo rag oo taariikh ahaan haddaad u noqotaan bulshada carabta say u dhisnayd naagtu inaysan wax xuquuqa lahaan jirin ama dhaqaalaha ha ahaato ama milkiyadeeda ha lahaato ama xuquuq gooniya oo iyadu leedahay sida dhaxalka oo kale ama guurkeeda inay xor u tahay waxyaabo badan ayaa waxay ahaayeen yani nus bini aadan ay ahayd sidoo kale waxaa ku badnaa faqriga ku badnaa faqrigan wuxuu ugu badnaa dabaqada wax leh waxay adoonsan jirtay dabaqada qaniga ay adoonsan jirtay risaaladii nabi maxamed markii loo keenay calayhi salaatu wasalaam aayadihii mabda'aas dhidibada u aasay waxaa ka mid ahay qowlka eebe yaa ayuha nnaas ina rabbakum waxaa ka mid ahay xadiid nabi sal ly slam uu yidhi yaa ayuha nnaas ina rabbakum waaxid wa ana aabaakum waaxid kullukum liaadam وآدم من تراب دمانتين waxaad leedihiin hal ilaah baad wada leedihiin waxaadna ka soo farcanteen nabiyullaahi aadam wuxuu ka soo farcamay ciid buu ka soo farcamay macnaheedu dadkii farqi u dhaxeeyay ethnic ahaan inay isku wada mid yihiin ayuu mabda'an xadiiskan nabi sallallahu alayhi wasallam sheegaya suurat al-hujurat inna akramakum 'inda allahi atqaakum ليس لعربي فضل على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أبيض ولا أبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى وآيات حروف السرية حديث كان قف عربيت إثنيك كمركي لقاها الله قفك عربك نينك أفريكانك كما سرمرسنا أما نينك الرومانك أما نينك إيشيانك أما نينك إيشيانك نتركيس عربك كما سريو nin guduudan nin cad kama sareeyo nin cadna nin guduudan kama sareeyo waxay ku kala sareyn karaan oo kaliya oo lagu kala saari karaa qof kastaba inta uu ictiqaadkiisu iimaankiisu sareeyo ay ku kala sareyn karaan waa intaasna waa intuu qofka asaga ilaahay u dhow yahay marka mabda'an shariicada islaamku marnaba shaki lama gelinin oo tafsiir lama gelinin lama ta'wiil looma samaynin النبي صلى الله عليه وسلم قريس يكون دبقي النبي صلى الله عليه وسلم مالنا عرورتيسي حسن حسين ومكلا إحانين والسمي دمر كيس والسمي وأسنايين مبدأ أس مال ما كم إذا يا حاضي نين قرش أيه وحو حاضي حلو حاضي مركب النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه أصحابه كم إذا إرجو nooga noqdo nabi sallallahu alayhi wasallam saaxiibka yahay marka nabigu aad u xanaaqay waliba nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu xanaaqo wajigiisu waa asaan jiray gudud buu noqon jiray markaas wuxuu yiri hadii ay Faaduma hadi lahayd hadii Faaduma bint Muhammad haday hadi lahayd gacantan ka jirlaa mabda'as marka waxa nooga muuqata nabi sallallahu alayhi wasallam dawladiisa iyo shariicadii uu waday in ay had shariico u dhisan inay dadku sharciga hortiisa ka sameeyeen ninka qurayshiga iyo ninka xabashiga iyo ninka farisiga iyo ninka eeshiyaanka intaas baahaynba inay u sameeyeen shariicada hadii mid gacanta laga jaro mid kalena laga jaraya wax farqiya oo ethnic ahaan u dhaxeeya oo kan gooniyo ninka waa qurayshi nabigu abtirkiisa maraa ma jirin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu dhintayna Abu Bakar waxa uu خطبتيس كوبات كبلاوي أصغوا له أيها الناس إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى أخذ الحق له والله قف إياكي بحب بدن نيك الضعيف كأه مجرور نيك سأني أكتيد كحب بدن إلا أن حقي سأصدعين يعني نيكي حوق لها يا نيكي الضعيف كأها لبضوا بأكتيد واسميهين وأنا السمايا إلا أن حقيسي أنا سأقولي أبو بكر عمر وقتيسي waxaa tartamay nin reer Masar u dhashay oo qibti ah iyo saxaabada mid kamida marka midkii fardiisa laga badiyay ee qurashiga ahaa ayaa ninkii ulku garaacay marka uu yeeray marka Madiina uu yeeray
madiina markuu ugu yeeray ayuu yidhi ka aarso hadal wuxuu yidhi waaray oo ahaa mata stacbadtum annaas waqad waladat ummahaatuhum ahraara dadka goormeed addoonsateen hooyadoodii aabbahood ayaga xore dhasheen qof aanan asagoo xor ah soo dhalnin oo dhaxal aabbihii iyo hooyadiiba addoon ahaa dhaxal buu addoon ku noqday ma jiro qof kastaba xor buu kusoo dhashaa dadku waa isku wada mid haddaba haddaanu nimaadno waqtiyadaas haddii laga soo tago waqtigan hadda la joogo waxaa jira ahdi waxaa jira xuquuqul insaanka oo adduunku dhan laysku ugu yaraan laysku waafaqsan yahay waxaa ku jira inkastoo ay jiraan ahdiye ka duwan ama heshiisyo ka duwan oo ayagana kabaya ahdigaas waxay isku wada waafaqsan yihiin mabda'an inay dadku sinaadaan inuu yahay mabda aan bii kama dhibcaana ah oon dood ka jirin muxuu leeyahay marka qodobka afraad wuxuu leeyahay dadkoo idil waxay ku dhashaan ayagoo xor ah qof addoona ma jiro ayagoona ka siman xuquuqda karaamada iyo waajibaadka ayagoo ka siman ayuu qof kasta dhashaa su'aal baa marka imanaysa marka shareecada islaamka dadka ay simayso ma muslimiinta bas ayaa siman mise macal dadka aan muslimka ahayn way siman yihiin waa su'aal u baahan in si fiican isha loogu qooraansado dowladda islaamka waxay ka kooban tahay muslim iyo qof aan muslim ahaynba waxaa ku dildadaan waxaas aaminsanayn dhammaantood haddana waxay ka mid ahaayeen dowladda islaamka ay ka tirsanayeen dowladda islaamka marka muslimiin keliya maaha dadaan muslim ahayn baa ku jira marka dadkaasi marka mabda'an ma lagu dabaqayaa ma leeyahay dadkani waa wada siman yihiin haa dadkan way wada siman yihiin maadaama ay yihiin bini aadan su-aasha kale jirta waxay tahay haddadan la joogo dowlado waxaan ku hoos noolahay kala gogo'an oonan hal khaliif iska lahayn dowladahaasi dowladda Pakistan dowladda Soomaaliya dowladda Sacuudi dowladda Morocco dowladda Turki dowladahaasi mabda'ani waxaa lagu dabaqayaa dadka muwaadiniinta dalkaas u dhashay kaliya yaa mabda'an lagu dabaqayaa mise dadka gudaha dalka dhex jooga ama ha ahaado qof ajnabi ama yus ahaanin waa lagu dabaqayaa haa isagana qofka ajnabiga ah iyo qofka aan ajnabiga ahayn dalka u dhashay muwaadinka labaduba xaq ah muwaadiniinta xaq sinaanta waa inay si isku mid ah u helaan maxaa ku qasbaya marka in qof ajnabi ah in loola dhaqmo sida qofka muwaadinka kale loola dhaqmo yani sinaan hadduu isbitaal galayo hadduu galayo maxaa la dhihi jiray jaamacad hadduu galayo hadduu wax kastoo adeega ay dowladdan bixinayso maxaa uu xaqaas u helaya wuxuu helayaa maadaama uu yahay bini aadan maadaama uu yahay mabda'aas sinaanta bini aadanku idil buu ka dhexeeyaa oo ma codayn karaa ma la dooran karaa kuwaas waxaa la dhahaa waa xuquuqda siyaasiga ah muwaadiniinta kaliya in gooni u tahay exclusive u tahay marka waxaa jira waxa la dhaho minimum standard of human rights oo qof kasta meeshuu joogo ama ha ahaado dalkiisa ama dal ajnabi ha jooge inuu hela ay tahay iyadana waa way u siman yihiin dadka ajaanibta iyo dadka kale qof baa wuxuu isweydiinayaa oo dunidan soo kan jinsiyadaha loo kala sameeyay oo markaad halkan ka tagto airport hebel aad marayso Soomaali baa tahay haa adiga Jarmal baa tahay haa Jarmalka bal adiga hormar Soomaaliga yara istaag Afrikaan baa tahay ma tahay sinaan mise ma aha sinaan dadku in ay kala lahaadaan nationality taas waxaan kaga jawaabaynaa dowladaha qaarkood wax gooni ah oo dal dib ay ku qabtay inay jirin baa laga yaabaa laakiin waxaa jira waajibaad faraya inay si gooni oo la tacaamulaano dowladdan heshiis ka dhaxeyn dowladdan heshiis ka dhaceeyo si ay si wanaagsan oo la tacaamulo مثلا kala qofka Soomaaliga waxa laga yaabaa 5 dal basiin visa on arrive heli karo dalkiis markuu ka baxo laakiin dawladda Mareykanka ay heli kartaa ugu yaraan intaas dawladda heli kartaa waxa jira obligations waajibaad ku qasbaya dawladdaas inay sidan oo la tacaamusho marka sidan tacaamulka waxa keenay heshiisyo hoos jira ee sinaanta marnaba
kama ka hor imanayso. maxaa marka aan dhihi karnaa dadku waa inay u sinaadaan? kow, inaan hal arrin fahanno waa muhiim. kow, sinaantani ma 100% ayay dadku sinaanayaan mise marmarka qaarkood sinaantu waa qeexitaan gooni ay leedahay. waxaan dhihi karnaa wax adduunka siman 100% ma jiro, ee waxaa jira in isku cayn ah, isku nooc ah, isku status ah oo la dhihi kara intan waa inay sinaadaan. Soomaaliya dadka ku nool oo citizenka ah waa in ay halkaas xaq wada helaan oo inay u simeeyeen xaqaas. in la dhaho ardayda arday qofkii ah waa same status, intaasi ayaguna waa inay xaqaas helaan, waa inay u sinaadaan. marka haddii ay dadku ay yihiin dad isku wada cayn ah waa inay sinaadaan. laakiin hadday caymo kala duwan ay kala leeyihiin way kala duwanaan karaan. masalan oo kale haddii la dhaho ardayda jaamacadda dhigta heerka jaamacadeed xaq waxay u leeyihiin gunno 100 shilin Soomaaliya, haddii la dhaho muwaadin kale oo jaamacad dhigan ma dhihi karo ani muwaadin baan ahay waa inaan xaqaas helaa 100 kun waa in la ila siiyaa, waa inaan la ila simaa ma dhihi karo, sababtoo ah isku cayn maaha. waxyaabaha ay ka sinmanayaan waxaa ka mid ah inay kow nolosha inay ka wasimayeen dadku. qof baanan nolosha waxba ka jajaba. nolosha waxaa ka mid ah qofka inuu ammaan heli karo, inuu heli karo quudki, inuu heli karo in nolosha waxyaabihii daruuriga u ahayd inuu heli karo. waxaa ka mid ah inuu qofkani xaq u heli karo si guud dadkanoo idil ay la mid yihiin xurriyad, dad gooni in xurriyad la siiyo, dadka kalena laga qaado. iyadana waxay ka hor imanaysaa xaqan ah sinaanta. in dadka qaarkood la adoonsado ay ayagu shaqeeyaan kaliya oo lagu adeegto, dadka qaarna la dhaho idinku waxaad tihiin, micnihii waxay ka hor imanaysaa mabda'a sinaanta oo ahayd adoon iyo nin adoonsanaya ninka xorta ah in iyadana la kala saaro. xuquuqda waxaa ka mid ah inuu qofku shaqada markii la dhaho inay shaqada dadku u sameeyeen. qofkii shahaado jaamacadeed wata oo soo bartay IT inuu xaq u leeyahay in uu meel kasta oo shaqo ka soo baxdo haddii isku mid yihiin in uu shaqadaas u doonto. in waxbarashada sidii loo heli lahaa qof kastoo shahaado dugsi sare wata in uu xaq u leeyahay si sinaana inuu jaamacad geli karo. waa misaalo un intaas. intaas waxaa ka soo horjeeda marka mabda' la dhaho asagana non discrimination, inaana qofkan la takoorin. haddii la yidhi waa la simay, si aan u fahna marka caddaan waa maxay, waa inaan dhahno waa madow ka soo horjeedkiisa, waa inaan dhahnaa gaab qofkan uu gaaban yahay, waa inaan dhahnaa dhirir baa ka soo horjeeda, si aan u fahno gaabnida. marka si aan u fahno mabda'a sinaanta dadku way siman yihiin, waxaa ka soo horjeeda dadku ma sinna oo faquuq baa jira. mabda'aas anagu hadda kama sheekeynayn, laakiin sinaanta kaliya ayaan taabanaynaa. in badan ayaad ka sheekaysay dhinacyo kala duwan, iyadoo sinaan la-aantu ay tahay wax weyn haddana laga digay in la sameeyo, haddana maxaa dhiirigelinaya inay jirto? waa koowe dadka waxaa lagu qaabeeyaa sharciyaa lagu qaabeeya. bini aadanku wuxuu jecel yahay inuu wax gooniya keligiis yeesho, dadkuna waxba yeelan. wuxuu kaluu jecel yahay in uu dadka dulmiyu jecel yahay bini aadanku, oo dabeecadda bini aadanku samaysay. haddaan la xakamaynin, haddaan liijaan lagu xirin, wuu ku tagayaa. marka waa in la sameeyaa dadkan waxay u saman yihiin tallaabooyin iyo habraacyo lagu kontaroolayo dadkan in ayna dadka ku tacadinin. waxaana lagu gaari karaa keliya in dadkan sharci u sinaanta ku boorinaya oo dadka ku qasbay waajib kaga dhigay inay dadku sinaadaan, in sharciyadaas laga shaqeeyo laguna baahiyo mujtamaco idil, laga soo bilaabo dastuurka ilaa iyo guryaha
guryaha yani ninka iyo naagta aabaha iyo waalidka iyo wiilkiisa waalidkii gabadhiisa in ayagana lagu qasbo yani sharcigaas in la soo dedejiyo oo kor laga keeno ayaa lagu gaari karaa markaan eegno waxa uu ka qabo dastuurka iyo sidoo kaleba xeerarka haddii aan ku hormarno dhanka dastuurka oo kale muxuu ka qabaa xaqan sinaanta ah dastuurka waxaa jira qodobka 10aad ayuu xaqan ah sinaanta kaga hadlaya laakiin waxyaabo kala la socda waan hal baan u dulmaraynaa qodobkan 10aad wuxuu leeyahay waa qodobkan ka hadlaya sinaante muwaadiniinta oo dhan wuxuu ka hadlayo waa muwaadiniinta oo dhan kuma jiraan ajaanibta ayaga oon loo eegin lab iyo dhadig yani wax la kala saaray ma jiro marka laga hadlayo lab iyo dhadig diin qofka wuxuu aaminsan yahay xaalad bulsho waxaa loola jeedaa qofkani bulshada say u arkaan siday u arkayaan yaa lahaa xaaladda qofka bulshada yani gabadh iyo garoob soo ma garas nin iyo wiil marka bulshadii sida u yaqaanaan xaaladiisa ama dhaqaale qofkan ma faqiir baa maqani ba iyadoon la fiirnin afkaar siyaasadeed waxaad moodaa qodobkani inuu si toos ah u soo qaatay sharciyada caalamiga afkaar siyaasadeed qabiil yani qofkan isagoon la eegayn iyadana qabiilkiisa naafanimo yani qofkan isagoon la fiirnin xaaladiisa goonida tabartiisa inuu naafa yahay inuu dhammaystiran yahay lixiisa lixaad xirfad muxuu qabtaa qofkan iyadoo la fiirnin qof baa wuxuu ka shaqeeyaa kalluun qof baa wuxuu ka shaqeeyaa geel buu raacaa qof baa wuxuu ka shaqeeyaa warshad buu ka shaqeeyaa isagoon qofkan xirfadiisa la fiirnin dhalasho iyo afguri toona qofkan meesha uu ku dhashayna lama fiirnayo qof baa wuxuu ku dhashay jasiirado ku dhashay qof baa wuxuu ku dhashay inkastoo aad moodo dhalashadaas in laga saari lahaa sababtoo ah gobolka Soomaaliya ama territory-ga Soomaaliya waa hal weeyaan waa isla samaysan iyadoo la fiirnayn marka meesha uu ku dhashay sababta saas loo yiri waxa weeyaan dhalashadu waxa laga hadlayaa waa international territories baa laga hadlayaa marka hadalkan la qorayay heshiis caalami ah marka waxa laga hadlayaa Soomaaliya iyo Japan iyo France ayaa laga hadlayay marka dhalashada meesha uu ku dhashay qofka laga saasa laga wadaa laakiin kan in laga tira ku fiicnay iyo afguri toona afgurigiis bixnay waxa laga wadaa yani afafka hoose ya ee Soomaalidu ku hadasho yani afna waa mid kan rasmiga ah dawladdu leedahay af Soomaaliga waa asagana maay maxaa tiriya iyo afguri hada waxa jira tunida luqad gooni ku hadashaa garra luqad gooni ku hadla luqad ma dhahay afguri baa la dhahaa what reer baraawo luqad gooni ku hadlaan marka afgurigaas iyadoo la fiirinin qofkan okay xuquuqda iyo waajibaadka waa u siman yihiin sharciga hortiisa yani xaqa qofka uu leeyahay ogaadana xaq haduu jiro waxa ka soo horjeeda waa waajib haduu jirana xaq baa ka soo horjeeda marnaba waajib kaligiis meel istaagin xaqna meel kaligiis ma istaagin marka waa u siman yihiin sharciga hortiisa qodobkaas waa iska cadaan marka waa falta koorid ah yani intaas markaan ka soo tagnay oo niri waa sinaantu waa intaas waxaan sheegaynaa marka maxallid ku ah waa falta koorid ah haddii natiijadiisu noqoto is-hortaag ama ciriiri gelin xaqa qofka haddii intii la soo hor istaagay intii aan hadda ka sheekeynay haddii qof laga hor istaagay xaqiisa waa fal takoorid ah weeyaan xataa haddii falka si ula kac ah aan loo samayn xataa qofkani hadduusan si kas ah una u samaynin waxaan dhahaynaa waa fal takoorida weeyaan xukuumadda marka waa ka hadaad ka hadlaysa xukuumaddu ma takoori karto qofnaba iyadoo sababaynaysa da'da sinjiga midabka qabiil isir dhaqan ama lahjad jinsi dhalasho xuryaannimo diin siyaasad ama fikir xirfad iyo mulkiyad wuxuu la hadlayaa qodobka saddexaad wuxuu la hadlayaa xukuumaddu la hadlayaa xukuumaddu wuxuu leeyahay
xukuumaddu ma takoori karto qofna ma takoori karto sababahan soo socdana kuma takoori karto qof da'diis kuma takoori karto qodobkaas oo soo noqon rabaa hadaayta qodob aan sheegay ayaan ku fasiri doonaa waa inaan loo arkin fal takoorid ah barnaamijha kan waa ka marka kan xukuumadda marka waa kan lagu fasiray waa inaan loo arkin fal takoorid ah barnaamijyada xukuumadda sida shuruuc hab siyaasadeed iyo hab maamul ee loo qorsheeyay in sinaan buuxda lagu gaarsiiyo dad ama koox hore loogu geystay takoorid ama ku sugan xaalad dib u dhacsan waxa loo jeedaa xukuumadda waxay leedahay misalno kale qodobada sinaanta markaan ka sheekeynayno kale qodobo dhaqaale ku jira qodobo waxa ku jira social baa ku jira xukuumadda mararka qaarkood habraacyo waxay samaysaa tallaabooyin waxay qaadaysaa dad gooni ah oo mujtamaca ka tirsan Soomaaliya ayay kor inay usoo kicisay rabtaa degmo kasta haddii loo qorsheeyo dawladda Soomaaliya hadday u qorsheyso inay hal iskuul u dhiso sanadkan iyada waxay u dhisaysaa 3 sababtoo ah sinaantii yay kor usoo kicinaysaa cadaaladii yay kor usoo kicinaysaa kama hor imanayso sinaantii guud sababtoo ah cadaaladda iyo sinaanta mar kastaba cadaaladda weyn sinaantu way ka hooseysaa waa qayb ka farcamaysa marka waxay leedahay waa inaan loo arkin falta koorida haddii ay xukuumadda wararka qaarkood ay dad gooniya soo kicinayso qorshayaashaas qodobkan marka waxaa ka muuqda in takooridna uu ka hadlay sidoo kalena sinaan uu ka hadlay waa labadii dhinac waa labadii bog uu mar kastaba ka hadli lahaa mabda'an sinaanta waa midda sinaan iyo maxaa ka soo jeedo falta koorida markaan ka tagno dastuurka xagga xeerarka Soomaaliya ama xeerarka dalka qaybtan waxyaabo ay ka dhaheen dhanka sinaanta qodobkan sidaad la socoto dastuurku waa mabaadi'da guud oonan tafsiir lahayn waxaa tafsiirin karo kaliya maxkamadda sare haddaba sharci kasta oo dalka ka jira waxa uu ka dab qaadan doonaa qodobka 11aad ee dastuurka iyo qodobada la xiriira ee dastuurku yaal oo ah sinaanta in sharciga loo sameeyahay in loo sameeyahay garsoorka loo sameeyay dhaqaalaha in si cadaalad loo qaybsado qodobada ka hadlay sinaanta si guud ayay ka dab qaadan doonaan ayaguna waxa ay ku salayn doonaan oo tafsiir u noqon doonaan qodobkan iyo qodobada la xiriira ee dastuurka ee si gooni ayaga kama sheekeynayaan qodobkan sinaanta markan waxaan eegaynaa dhanka iyo ka qaybgalayaasha waxaan soo dhaweynayaa Asma Daahir si su'aasheeda ay martideena u weydiiso soo dhaw waxaa marka hore ma santahay waa tahay su'aasha aad doonayso inaad weydiiso su'aasha maxaa waaye formulada 4.5 dhikarna cagsi ku tahay sinaanta waa ma santahay barnaamijka qaybta dambe waxaan kaga hadli doonaa dadku inay u siman yihiin siyaasadda in dalka la maamulo xuquuqda siyaasadeed ee dastuurka ku jirta waxaa ka mid ah in qofkan la dooran karo asagana uu wax dooran karo marka 4.5ku horta hore meel uu ku qoran yahay 4.5 dastuurkeena ma jiro laakiin waxaa jira constitutional customary in curfi dastuuri la sameeyo ay dadku samaystaan oo ina ka bixin ma qorna laakiin waa dhaqanka dastuurkeena markii la qaybsanayo awoodda dalka in saas lagu qaybsado oo la dhaho 4 dhibcood qabiiladana iska leh hal dhibic nusna waxaa la iska leh qabiiladaas iska leh kaasi marka sida kuwa cadba wuxuu ka soo horjeedaa mabda'i ahaa dadku inay maamulka dalka ay u sinaadaan uu ka soo horjeedaa marka adigu maadaama aad arday qaanuun aad tahay dhigatid waxaa kuu muuqata inay totally ka soo horjeeda laakiin waxa inaan baabi'ina aan rabno aniga ee dadka maxaa la jiro sharciga barta waxa weeyaan dalka inay dadku u siman yihiin maamulkiisa inay u siman yihiin inay u siman yihiin hanti buu dalka leeyahay in dhaqaalihiis dadka u siman yihiin waa waxaan rabna inaan bedelno dhanka ay ka qaybgalayaasha ayaan ku guda jirnaa Sucaad Yuusuf ayaan markan soo dhaweynayaa su'aashaad qabta ee doonaysa inaad la wadaagto martideena
bismillaah marka hore waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo ustaadka waxaa ra ustaadka inaan la wadaago su-aashii ah sinaanta dhinaca sharciga iyo xeerarka ilaa intee ay gaarsiisan tahay ee dadka dhan ku wada helayaan sinaan sharci. su-aashaada waa su-aal oo objective ah waay nina waxaa la weydiiyey war hebelow ka warnaa la yidhi arrintaas markaasuu yidhi arrintaas waxay u taallaa yidhi beesheeday u taallaa waxaan ka wadaa sinaanta in intee la eg ayay dalkeenna ka jirtaa ama see lagu gaari karaa waa arrin u taalla dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo daba taagan say ku gaarsiin lahaayeen hadaata waan ka hadalna waxaan nidhi in mabda'an dhidibada loo aaso oo la dabaqo waxay u baahan tahay qawaaniin iyo dadka in awareness badan la siiyo oo lagu qasbo dadkan waajib looga dhigo inay dadka simaan wadamada boqolkiiba aan dhihi karno 60 way baaseen oo sinaantan mabaadiidan way ka baaseen waxay gaarsiiyeen shacabkooda ilaa meesha ugu dambaysa in qofkani wiilka iyo gabadha uu isku si u geynayo uu ku qasban yahay wiilka iyo gabadha inuu iskuulka hal mar wada geeyo mujtamaceena oo ogtahay dhaqan ahaan inuu ka duwan yahay mujtamacaadka aan sheegayno oo mujtamac jira asaga dhanba dawladnimadiisu ay cusub tahay oo jira haday u baataa 40 sano 50 sano jira 50 ka sanadoodna sharcigeena dalka aad buu weyn ku ahaa marka taas waxay nooga baahan tahay dadaal iyo fikir dheeraad markan Maryan Cabdixakiin ayaan soo dhaweynaya su'aashaad qabtay doonaysa inaad ustaad kala wadaagto ustaad Cabdiqaadir waa mahadsantahay sida quruxda badan aan ugu soo jeedisay mowduuca sinaanta oo aadka u baaxad weyn marka waxaa rabay inaan ku weydiiyo marka laga soo tago sinaanta guud ee bini'aadanimada oo waxyaabaha asaasiga u ah sida qofka inuu helo nolosha asaasiga u ah sida qofka inuu helo amniga kale nationality-ga marka taas ka soo tagno maxaa kale oo ugu waaweyn oo qofku u baahan yahay sinaanta haddii jiraanse sidee looga baabi'in karaa bulshada dhexdeeda su-aashan waxay ahayd qaybta dambe barnaamijkeena saan qiyaasayo waa laakiin waa su-aal baad ka dhigtay waa maasan tahay kow sinaan la'aanta in la baabi'iyo haddii la rabo waa inay sinaan la helaa oo keliya kow waa in dadku ay u siman yihiin kow sharciga hortiisa waa inay u siman yihiin haddaatan waan sheegnayoo dadka sharciga hortiisa ooma sinaan karaan ilaa sharciyadii ku qasbi lahaa dadkani inay sinaadaan ilaa la helo oo sharciyada dastuurka kulley hadda waa qoran yahay sharciyada si fiican loo sii faahfaahiyo pilowska ama xeer hoosaadyada dadka loo simo sharciga hortiisa waa midka labaad waxa weeyaan in dadka naftirkooda ay u siman yihiin haddii xaqi ay waayaan waa scenario haddii uu qofkan waayo in lagu sameeyo faquuq lagu sameeyo kale ama la takooray oo kale in qofkani meeshii uu ka helaa xaqan inuu u siman yahay naftirkiisa oo ah garsoorka hortiisa garsoorka inuu geli karo xaq ahaan uunan garsoorka labadii qofood ay ishayay masalan kale adiga waxa ishaya qof xukuumadda adiga iyo waxa ishaya qof shakhsi oo caadi ah adiga iyo waxa ishaya qof kale oo ka tirsan wadan kale laakiin dalkeena ku nool in aad iyadana aad garsoorka hortiisa inaad ku sinaan kartaan ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya garsoore la dardaarmay marka wuxuu yiri saawi fi maq'adik يعني dadka markay ku yimaadaan labada qofood dacwadaha iyo la dacweeyaha labadaba laba kursi oo isku mid ah hortaada inay fariistaan midna inay waqtiga soo fariisto midna waa inuusan jirin wax idin dhaxeeya oo khilaafa waa inay dadku maxkamadaha lagu qaadayo dacwad waa in mesela kale su'aadna inaan maxkamad gooniya loo sameyn dadkaas goonida ana oo la soo dhaweynayna maxkamad gooniya inaan lagu sameyn waa inay dadku u sameeyeen oo kale habraaca loo maray dacwooyinka يعني الدعوة هذا مثلا كلا دعوة هبراعة لو قاعدة كو إن محكمة هير درجة كوبات محكمة رعفانكا كدي محكمة سر هدي لو بعضه
intaas marka waa inay dadku u siman yihiin haddii masalan kale ciqaab ay jirto qof gooni ah oo ciqaab asaga waa halkii fal dambiyeed in aanan hebelna aan lagu samaynin 10 sano xariga kana aan laba lagu samaynin oo dadku u siman yihiin xagga ciqaabta ama sharciga lagu dabaqay naftirkiisa hadda waxaan aragnaa dadku inay mararka qaarkood ay u sineen sharciyada lagu dabaqay waxa kale jira dadku sidoo kale waxyaabo ay u sinaanay waxa kamid ah xukuumadda shaqooyin bay bixisaa waa fursad hadda maanta mesela kale ma dhihi kartid waxaan u sinaanaynaa shirkad Heblaayo markii la shaqaaleysiinay dadka sababtoo taasi dadku ma wada laha laakiin xukuumadda ama dawladda hay'adaha ay leedahay waa inay dadku shacabku dhan wada sinaadaan markii la helayo fursadda shaqada markii la adeegsanayo xukuumadda naftirkeeda xoolaheeda markii la isticmaalayo waxa laga wadaa isbitaalkeeda markaa galaysid jaamacadeeda iskuulkeeda jidadkeeda maraakiibteeda diyaaradeeda markaad korayso xukuumadda dawladdu iska leedahay wax la wada leeyahay weeyaan marka dadku waa inay wada siman yihiin mararka qaarkood ay sheegay waxa yiri dadka qaarkood baa wax gooniya loogu talagalay dadkaas marka waa inay isku cayn yihiin cayntaasi waa inay sinaadaan marka waxa kale oo muhiim ah dadka sida loola dhaqmay habka loola dhaqmay waa arinta hadda idin sheegay Umar ibn Khattab oo lahaa dadka markay golahaaga soo fadhiistaan inay dadku ku siman yihiin fadhiga naftirkiisa waa inaanan markuu soo galo madaxweynaha xildhibaanka wasiirka wuxuu rabana loo qaban markuu qof shacab caadi ah markuu soo galana aan la dhihin bari soo noqo warqadahaagii hoos baa la iska dhigtay oo wax shaqo loo qabanay ma jirto yani waa inay dadku u siman yihiin dhinaca hawsha loo qabanayo habka loo dhaqmayo dadkuna sidoo kale waa inay sinaan ay ka helaan dhinaca milkiyadda qofkan muxuu yeelan karaa inay dadku wada lahaanshaha ay lahaan karaan diinta islaamka waxaa ka dhex muuqata milkiyadda markii laga hadlayo in uu ka dhex qaatay midda ugu dhexdhexaadsan marka mabda ah in dadku ay wax yeelan karaan dawladuna dadku ay wax ku wada yeelan karaan qof kastana si gooni u yeelan karo marka waxay qaatay mabda u dhaxay intaas waxaan markuu soo noqonaynaa marka dhaqankeena Soomaalida ma u siman yihiin dadku siyaasadda markii loo ama dalka la maamulaya ma u siman yihiin hadda marka dhawaajino xayri sida muuqata oo ma sinna dadka markii dalka la maamulay maamulkiisa oo ma sinna sidoo kale dadku bulshooyinka ma siman yihiin dadku yani anagoo say hal qabiil ah annagiyo haddana ah يعني مسيس السمين دتك مسا قبيل جوني الله فقوقا جرت يا ها قبيل هذا قاركوت ولا فقوقا وحبا ذلك لما وذا جي مامور كيسة لما وذا جيو استحقالك بالشدة وقبر لما جورسة قبر لو مجوريو وحقوسه علي مجتمع الصومالي ده نقالها دتك مسلمين يعني نقالها ذلك صباح dawladdeena waxay sameeysaa lacagta ay sameeyso dadka ma loo qaybiyaa mujtamaca Soomaalida ma u sameeyay mise dad gooniya qaata waxa noo muuqata markay soo bilaabatay dawladnimada Soomaaliya 60kii ilaa hadda inay dadku dhaqaalaha hantida dalka u sameeyeen yani national wealth inay u sameeyeen bil cagsi dadkii iska lahaa hantida wala socotaa nidaamkii ishtiraakiyada markuu yimid dadkii hantida iska lahaa beeraha iska lahaa يا حاليري ولا إذن الله ولا قاضي ذاتك باللو قيبي لكن دولتي يا مامور كذي يا هنتدي قرن كسوق ليسي لقاله هنا لم وذاجن لا مسمي مركب حاب مقنسة الشعب كان أي ولي أرنت السنان تأد وليدته لكن هندنا وحاويان وحال غربا دولة الصومالية إن مركز تبع مبدأ السنان أي أد إيش الله يسوي على
guud ahaan saaxiibayaal barnaamijka tusmada sharciga inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa waxaan kusoo qaadanay ilaalinta xuquuqda sinaanta sida uu dhigayo dastuurka soomaaliya waxaa marti barnaamijka ku ahaa cabdiqaadir sheekh axmed nuur waxaa ka qayb galay asma daahir sucaade yuusuf iyo maryan cabdixakiin intaan mar kale ku kulmi doono sida ay nabadgelyo ma gurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax goy